runtii waa maalintii labaad halkan ayaan muxuu ahay ugu kala wareejinay labada korneyl oo halkan muxuu ahay hadda la kala wareegaya aniga sharafay ii tahay in ciidanka muxuu ahaa ninka la yiraahdo saldhigga aeroboortka aysan dad cusub oo hadda ka bacdi tababar la siinayo ama shaqada aan aqoonin ama ciidanka ee saraakiisha aan aqoonin inuusan meel kale laga soo bedelin ee isla hoggaanka dhexdiisa laga soo bedelay galkacada wuxuu ka yimid qaybta ilaalinta canshuuraha taliyaha wuxuu ahaa ilaalinta canshuuraha ee qaybta cabdifataaxna muxuu ahaa sidoo kale u ahaa runtii waxaan rabaa maanta inaan halkan ka qiro cabdifataax waa muxuu ahay nin dhalinyaro waa nin meel hiigsanaya runtii markii qofku hadduusan meel hiigsanayn sida hadda uu tallaabooyinka ah ma u socdeen waxqabadka ka muuqda saldhigga ma qabteen laakiin muxuu ahay annaguna bayaxaa baanu hayno gaashaan low noogu yimid haddana waa gaashaanla sare waxay nooga mid tahay muxuu ahay horumarka muxuu ahay hoggaanka anigu odaga guud oo hoggaankaan ahay raggayga inaan isku wato muxuu ahay ninka la yidhaahdo ayna ka bedelnaadaan ciidanka booliiskaan jeclaa waana ka bedelan yihiin runtii ciidanka ilaalinta canshuuraha saldhigga dekedda iyo saldhigga aeroboortka iyo laantu intuba muxuu ahay ciidan cajiiba waaye hoggaamin fiican helay saraakiil fiican helay aan aad ugu faraxsanahay shaqadooda runtii muxuu ahaa ninka la yidhaahdo mar haddaad arki la aheedeen 24 saac anoo idin kormeera oo meel kasta tegaya bimacnaa waxay ahaan laheeday saluug aan qabo laakiin hadda waxaan qabaa saraakiisha ka hooseysa iyo taliyaha saldhigyada taliyada fadhiyada inay yihiin dad muxuu ahay waajibaadkooda sida uu yahay u gudanaya sharafay ii tahay anigana muxuu ahay hoggaankii maadaama aan oday ahay oo odayaashii booliiska hadda ugu da'weyn aan ka mid ahay sharafay ii tahay marka waxaan jeclahay sidaad shalay ula shaqay jirteen waa un gaalkacyihii laftiisiyaa idiin yimid hadda ood shalay la shaqaynayseen wuxuu kala wareegay cabdifataax 5 sano mise 4 sano kadib isagii haddana soo noqday saad cabdifataax ula shaqaynayseen shalana aad ula shaqaynayseen gaalkacay intii uun baa laydinka rabaa wax ka bedelan qofoo idinka ma rabto muxuu ahay idinka laftiina faa'iiday idiin tahay inaan taliyo cusubooda aqoonina oo bashkac jug soo dhacaa aan laydiin keenin ee taliyihiinni hore uu dib idinkugu soo noqday idinkaaba muxuu ahay bahashii inkastoo ninka kastaba ha noqoto shaqo wanaagsan muxuu ahay nasiib wanaagsan gaalkacyo nasiib wanaagsan waa meeshaadii waa meeshaad taliyaha saldhigga u ahaan jirtay waa meeshaad hadda taliyaha qaybta u aheeday meel dheer laguma geyn cabdifataax waxaan rajaynaa dadaalkaagii haddaad sii wadda anaa huba wax badan inaa qabana ama adoo xildhibaanaan ku arki doonnaa ama adoo sidii sulub wasiiraan ku arki doonnaa insha allah ama haddii kale booliiska laftiisaad muxuu ahay xil adag ka qaban doontaa insha allahu tacaala marka khayr baan idiin rajaynaynaa taliyahii cabdifataax bini aadanaa la yahay waa suuragal qofku mas-uul hadduu yahay afkuu ka canaano karaa qoraal canaanahu ka diri karaa wuu ganaaxi karaa wax kastoo uu samayn karaa meeluu markaas joogay oo meel kale uga wareeji karaa wax kastaa dhici kara ilaahay dartii ha lagu cafiyo ilaahay dartiisuu idinkaga codsaday in la cafiyo ha la cafiyo ma fahamteen faatixada ha loo akhriyo in ilaahay meesha muxuu ahay hadda uu ka tegey meel ka quman oo ka fiican ilaahay geeyo annaguna waa jecelnahay inuu tago insha allahu tacaala sidaasaan isku ognahay wada shaqayn wacan howl wacan insha allahu tacaala khayraan idiin rajayna